kulan wacan wanaagsan idin ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidha email kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay haatan naga soo gaara dalkaasi Itoobiya iyo guud ahaan Geeska Afrika qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah duulaanka ay qorsheynayso aniraadiyo arad kiilo waa meesha looga taliyo dalka Itoobiya iyo waliba wadamada uu ku wajahan yahay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo booqday xerooyinka commandoska ee ku yaala magaalada Addis Ababa Bishaaftu iyo waliba aan idhaahdee dayactirka qalabka ciidanka ee dalkaasi Itoobiya waxaa kaloo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan Itoobiya oo sheegtay in ay ku khaldantay warqad dhawaan soo baxday oo ahayd xilka qaadista Aadan Faarax iyo waliba arrimaha ku gadaaman waxaa kaloo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan cabsi weyn oo laga qabo in uu dagaal xoogan uu ka dhex qarxo waa TPLF iyo waliba dalka Eritrea oo laftigiisu ama ay ku lamaansan yihiin faanada aan idhaahday ka dagaalamaysa deegaanka Amxaarada waxaa kaloo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan dagaal sidoo kale laga cabsi qabo inuu dhex maro maamulka Somaliland iyo maamulka Reer Khaatumo deegaanka Og waana حانا habeenkii xalay aha ka dhacay israsaasayn ay qolada kale ay rasaasayeen waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan Soomaaliya oo doonaysa in ay Israa'iil iyo waliba ciidan u soo tababaraan dalka Ruushka heshiis fiican ay la gashay bilaa Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale xiiso badan ayaynu daawadayaal ku qada dhigi doonaa barnaamijkeena waxaana barnaamijka ila falanqayn doona haduu Rabbi idmo saaxiibka Dr. Shide iyo waliba Gooni oo asagu ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya laakiin bal daawadayaal xaaladda dalka Itoobiya ha inoo dambayso waxaan si haatan ku hormari doonaa bal heshiiskan ciidan ee Soomaaliya waa bila Soomaaliya ay la gashay dalkaasi Turkiga waxa uu ka dhigan yahay iyo waliba ujeedooyinka ka dambeeya taasi oo loogu hambalyeeyo dawladda hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan garwaaqsaday baa leeyahay cadawga ummadda Soomaaliyeed gooriyo ku soo dhawow maasinta faragooda ku dhawaay maxay ka dhigan tahay heshiiska Ruushka iyo dhexmaray dalka Soomaaliya ruushka iyo Soomaaliya horta xiriir hore soo jireen ka dhaxeeyay saraakiisha loo tababar jiray Soomaaliya saraakiisha hadda Soomaaliya jooga ee da'da ah ee markaas tababarka ugu fiican haysta waxay ku soo waxbarteen dalka Ruushka sidaas daraadeed dawladda federaalka Soomaaliya waxay isku dayaysaa inay soo celiso xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya iyo Ruushka waxayna doonaysaa in Itoobiya laga gooyo maadaama Itoobiya waagi hore xiriir ay lahayd dalka Ruushka ugu dambeeyay waxa dhex gashay dawladda Soomaaliya waxay markaa safiirka kula kulmay dalka Ruushka u fadhiyay magaalada Muqdisho la kulmay حسن شيخ محمود أسوأ قاعد صدي إن جبي أهامبا دولة فارق الصومال لا تهاجره هذا أنا دنك تبى براد العيد ماذا هذا dhanka militariga ciidamada iyo waliba qaybaha tababarada sirdoonka ciidanka baa leeyahay waa qorshayaal aad u fiican weey waa gartay marka mid kalena waxa ka codsadeen in markaan madaxbannaanada Soomaaliya taageeraan xishiga marka Ruushka in madaxbannaanada Soomaaliya taageersan yihiin xagga tababarada iyo saraakiishana la soo celin doono ay markaas sheegeen arrintaasna waa arrin muhiim farqado waa gartay aad iyo aad buu mahadsan yahay Gooni oo asagu inta badan ka faalooda xaaladaha dalka Soomaaliya daawadayaal dad fara badan oo ka falceliyay xaaladan ayaa ku tilmaamay talaabadan inay tahay talaabo wanaagsan waxaana la tilmaamayaa in saraakiil fara badan oo khibrad u yeelan doona qaybaha dagaalada in ay ama loo diri doono dalkaasi Ruushka hadaba aanu soo noqono Dr. Shide iyo waliba dalkaasi Itoobiya cabsida weyn ee laga qaabo uu abiye booqanayo xerooyinka ciidamada commandoska dalka Itoobiya iyo waliba warshadaha dayactirka ku sameeyay qalabkii ciidamada iyo duulaankan haatan soo baxaya muxuu ka dhigan yahay aad iyo aad badan baadsantahay Colonel Faragodow waa ra'iisul wasaaraha Itoobiya dhaqaaqay ciidan ayuu wadaa wuxuu booqanayaa goobo kala duwan oo ciidamadu ay ku leeyihiin saldhigyo military iyo goobaha dayactirka hubka ee maartay duqoobay oo dib loo soo cusboonaysiinayo marka Colonelku waxaad moodaa inuu hadda markale colaad maartay u durbaantumayo boorkan uu iska jafayo una maartay xoogays hayaan uu tusayo inay markale ay maartay dagaal la mahadineen inuu ku qaaday doono marka xiriyaha uu booqday dhamaantood waa goobo ciidan waa goobo maartay hub culus lagu soo bandhigay muuqaalo colaadeed ba halkaasi laga soo tabinaya iyo in amarra halkaasi lagu kala qaadanayo oo saraakiisha ciidanka iyo korneelka marka korneelka duulaanka uu hadda qaadayo horta Itoobiya waxaad moodaa inuu dagaalkeeda weli dhamaan koona joogin haddana uu cusub yahay ama Itoobiya ay gali doonto dagaalo aan maartay aad moodinaan aad looga fiirsanin oo dalka dibadiisa inay gali doonto ayaa iska cad
korneylku waxa uu sheegay Ethiopia inay sida hadda ay ku jirto ay ku sii socon karto inay guul gaadho iyo inay maartay ay kala tagtay qarka u saaran tahay marka say guushi uu sheegay korneylku waxay tahay guushi uu sheegay waxa waaye inuu horta uu ka adkaado xoog ay dalka gudihiisa isku hayaan oo hadda ay ugu tunka weyn xoog Axmaarada oo ka dagaalamaya dhulka buuraleyda sheeganayana markasta guulo hordhac ciidamadan aad moodid barnaamijkiis loo ogyiin inuu ka dhaxeeyo oo ah marka xoogan la fogeeyo faanada ee dawladdu ay dhahdo nimanka waan ka durkinay magaalooyinka waaweynaa haddana mar saacada kadib markaa waxa soo yeeraysa nimankii oo maartay masaafadii hore ka badan soo gooy oo hadana magaalooyinka dib ugu habsaday marka qorshe waxaad moodaa ciidanka dhaxdiisa oo fashil weyn ah inuu jiro oo korneelkana maartay lagu niyad jabin inuu jiraan moodaa marka sidoo kale korneelku wuxuu diyaarinayaa Ethiopia inay bad hesho Ethiopia badda ay helayso dhawaan waxaan ogeyn inuu korneelku codsi u diray madaxweynaha dalka Eritrea ويران ولا هذا الله أنا شينو تي واتي رتيني كسر جوابتي نلا له شين كرمتي بنا كان كلا جوجن هديك كلا تدي واحد لا يلوع علادهم مركا كورنالكو معلمها كدي بالراعي عيدنا أيوب باللعبة يبغى شوين بدن باللعبة مركا تدكو حيلين كورنالكو علاد وديار يهوب كم بدن أصاب بندق يا مارتاي أمرنا وبحنا يسرقيشن كل ما كل جرو قرصوا يدولاك إثيوبيا كسوس على كيك وجاي تدكو الله يسويدين يا مركا إريتريا ودكديه هري إثيوبيا ولا هنجرته وهرنا أفكس أوجسوا يا إثيوبيا دكديه لا هنجرته دكديه اللي هو زوج عشان وهري وشاقي ما دكديه والله على إريتريا يا رب أنا دجال وهر قيب إريتريا ده ونقولنا وأبونا اللي يرزقنا ووحي إثيوبيا ماشى سوق هذا وحسكن نقول دونا هالبعاد ولا شيء نقول دونا مثل الصومالية ما تقدر حيلين صوماليا بحكور تاي إثيوبيا هذا أيضا نهب يعيد يقال داني وسكت دبر ريد سبعة سنين صوماليا دولة دولة ودولة كجر أسن ودولة هذا دجال بديار وين قابك يقول يحول قبيسه وحباب وين وروسي يعيد أباب المشى كمان مغلو إثيوبيا أي أود بدن أي موجود سام ديار جروب بدن أي وقش ماشي هس كمان مغلو السير عيال وهينا ده مامور أبرنا عملنا يا وأيه هرد أي جوجا محاول إثيوبيا سديارنسا مرة خبرة السياسة وحيلة هاي وحاجرة إثيوبيا waxay u aragtaa number 1 Soomaaliya horta waa dal burburay dalku markuu burburana fidnooyin badan ayaa ka yimaada dad aan haybtooda la gelin buu gacanta u galay Ethiopia waa tii 2006 ilaa 2007 nimankii markii Tigray ay hogaaminayeen ninkii Mali Salaawi khayrka daraa waa kii Soomaaliya dabcan uu qabsado waa kii Muqdisho aaday wixii ka soo raacaan ogeyn hadda iyadoo hadda dawlad baa jirto oo wax dawlad oo adduunka la macaamisho oo maan dheedaysato oo laga yaabo hub qarsoon inuu jiro inay waxoogaa ciidamo oo isku yar urursan oo dagaal ay geyso inta diyaarada ku qaado maalmo xabada rida ama bila yar dagaalama ay heli karto laakiin waqtiga ay nimankii Tigray duulayeen wax dawlad lama jirinba meesha shacabka dadku ayaga ahya wadan u dagaalamay nimanka Ethiopia waxay ka raacay waa loo taariikhda ugu xusantay nimanka Tigray waagaas ay Soomaali ay siiyaan ala ay shahaadada dagaalka ay siiyaan oo wiil qaawan oo waxba wadanin oo habeen iyo maalba weerar joogto ku hayo oo jami waayaan Ethiopia marka dhulka ay rabtay ay u hub qaadanayso waa dhul ay rabtay inay nabad ka dhigto sayna oga dhigi waa dhul ay rabto inay caalamka soo dulwayso Imaaraadki China wax walba keento nimankaana de xabad ma maqli karaan waa inay meeshaas ay noqoto meel colaad ka caagan Soomaalida marka ma noqon kartaan meesha Ethiopia ka qasbay colaad ka caagan kama noqon karto way ogyihiin Soomaalida waagi bariya weer biin weerka Soomaalida xaga lagu tilmaamo haddii Ethiopia intay maanta yaacdo ay dekadaha Soomaaliya ku habsato ma joogaysaa nimanka cadaanka ay wadato niman حبض هداي مقلان جوجا يبغى كل عريان هذا إنه باشا دواقنا ندبي إثيوبيا هذا مال نبض نجيسته أو استريح مش أنا ناقة هنجي ثاني كإنسانه أنا ماشي هذا ماشى يريلاكس أنا سميناه باشا الججلو وحول بيننا لقينا ما ذكرنا نسينا إسكده ماشي أسي وحول بيننا ودسينا لكن إثيوبيا ما أود ده إن أنت ذكرت الصوماليين قبضته أي مال نبض إن حبض كده عين ويركز على نقط صومالي جديد كمان قانون أبي أحمد سردون بواجس تاني سردون بوها والأوجي صومالي حتى الدولة دي ضعيفة فشلت صومالي إن إثيوبيا عبد كل دين إن لوين ويل يا جبر صومالي واجب بريا وحطورة واجب بريا وويرر أحد واجب بريا إسبارك صومالي ده حرفت بحاجة كويرة صومالي ده قال بين حاجة أهلية هو كصومالي يا إيو وحول بصومالي وساس أخرى تعادل تغد والدوين كنا بوحي كبوا حفيلو يا بلايا جوبته إيو إن إثيوبيا إن إسكده عداكوا إن هبين سيحنين ما فهمت marka Ethiopia
waxay leedahay haddaad xagga Soomaaliya aado ama ku fashalantaan wada dagaal dhamaan nimanka galbeedkana iyo nimanka cadaanka Jeyneska wateen ay dhaan annagu meel aan amni wax kama dhisi karno ciidan xabad wax ka socoto macna ma keenayso Itoobiya yani meel nabadayna waxba faa'iido ka gaaray dad baa waxay leeyihiin wuxuu iska noqon karaa sidii dagaalka Vietnam Mareykanka iyo Faransiiska waayidii hor ku dhaxmaray dalkaasi gumaysi la dirirka marka waa dagaal aan daba dhamaanaynin aan horumar iyo dekadna laga gaaray marka dhanka loo socdo waxaan soo socdo dulucda warkayga dulucda warku waxa waaye meesha loo socdo waa Eritrea maanta hadii ku duulaan Eritrea waddan dictator haysta oo man yar adag ciidamo badan iyo hub badan gacanta ku haya ninkaas horta in laga guuleysto la qabsan ilaa ma ah oo Eritrea ciidankeeda aad u tiro badan yihiin in kastoo ciidamada militariga dalkaas Eritrea iyo shacabku ninkan way naceen oo ay qorood isbada buu cil qabaan oo waxay leeyihiin intaan asiyaasi afwarka barnaamijkiisa fashilino oo nasan ka taqalusno kadib aan axyaa wadan aan markaan Itoobiya soo nin aan rabnaan keensanay iyo shacabku leeyihiin oo ninkan yana garab siin laakiin sida ay tahay waa adagta in Eritrea la galo Itoobiya waqtina way ku qaadan way ku halaagsami way ku burburi laakiin korneelka waxa laga yaabaa meesha uu hadda u burursanayo in ay tahay dekadaha Eritrea oo nimankii Tigrayga ahaa ayuu naas muujinaya oo وليه دجالك كولا قلنا نمك ترى يولي دجالك إلى قلنا كل دجالك وحن قبل لعبنا دولك أي نجاح يستان وحدود السودان يتوبي أنا مجالات هميرة يو دولكاسي والقيتر دولكاسي يمكن دولينا مركا أنت سكسر كما هرنا مكتب بتجينا إريتريان بدنا نوقع على هذين يجري وبين لكن بين بلسو شيء حتى كوي عادي جيران بإريتريان وعن هذول الأبي ونكن ماشي نرى عافي أبي ورث وأنا سياسة بدهان وخائن أنتو بالآن خائن يخاين أصور ربي إنه كدلو ولا كوغز جلبه كديان لما جلتو كدلو يلوها وخبصت وانكو جعله وحبك مجر مركو هذا حلك صوف ولي وأنك إريتري ودو يتوب دقاق الأحمر أنتو جفير بعسمرة كده حدقي والله يابي سيدين إثيوبيا وحلك وزي أسمر وقدك سيبس كوجا من أرض رباطك سو ممكن يعمل إريتريا وأنا مركب وجرجران ماي أنتو نك لوها قبصت وضي وشعرها قبصت مالك سكان وكان هذا حتى هذا مالك الجو وكان مالك سكان وكان عديو كان وكان نين بعد أن أوضل ما مرور نين كان عديها كان وكان أي نية ومنافقات أبي ومنافقات أبي وسجت تبي كار قبصت ما تقدر مرز معقويت أنت على إسكال حتى مرة سينا يوابين تم تقول بون تقول فلان هذا بيعيد ما هو يسوقان نرتدي جنب بقصة بحر وحاسب وحبك مجد حاجة وسعودي عصب يدكدي وحصل على إريتريا إيران حوله وحما كلامه ما إريتريا شعب إريتريا واجس جدت كلام فرحي يتوب سو أجزاء سوقر كلا كوا شخص كلا مقاحي يقولي حنا إريتريا وجهال مليار مرة سوقر نتسوى وحاس نقرشوا كوت حتى مركب برنامج كتكرر دجال كل ولا دجالم تكرر بقى يقولوا سوى تكرر مركب يقولوا سوى تكرر رجالبات كقربسين مراكن يرير يروح ما هو ده حوجة هذه أو نمك تكرر العقال اللي يتوب ولا جزرة مركب أبي حتى القرشوا كلوا أرك يعني السياسي حبض لو حلي حبض شيء لو حلي هل مليون أو عسكرة أي لجين إريتريان قربها لقول له شو سرقيله وحاجة إلى سجال لو شيء كورنيل هو ركب حسد السياسي وليه حق الانتجريشن ما سمعنا إذا كده المال قشنا إننا السياسة ماشي نلعب ما كان نلعب فيه يقول كنا وين يقص به لكن هو بين السياسة ماشي نلعب فين كذب إنه وديرة المكتب تولد يروح حسك القرصة بروح صارنا دكتها وارسة لنا غير عن أنا كنا يا مال قبلنا شو بياك عشان قيسات واس أحسن عنا يقول كنا واسد أنا يتري وأنا قصنا الدون كنا يقربنا من دول بقى قصنا يتري أنا قصي يتري كلام الله بنكره لكن إن كان مش عارفيننا والله شعربه وين يعني عارفين مش برامج نوع عسى سعود وإريتريان يتكري يأرمان رسول صعوطة أي وطن قرآن أحمرنا أيضا ولا بوفين أحمر واحد ملوج وجريه مجرو ما فهمت مركا هذا الديار جروه سعودة يراقيا نرعيدا يواحد دبابات وحن أركي سطح بقول أكار ولولا جودها يتوب الوقوف رسمي وكارياش بربري لا مالس وقت بربري ودي بلوس وضيع عتري وهذا حين كأي بحنا يعني أديابس قيقة كبودية قيقة بسيطة كبع لو دقاجنا ولا ليه فرنجة لجين marka meesha horta waxba ka soo salagle korneelkani baasha ama badda hindi intuu ku shuba bawlwad ku ay taag ku qaadi doona ama bahal dhisanta ay noqon doonta laakiin korneelku qorshooyinka wadooyinku qaadayo anu waa ku bogaadinaya hore socdaal korneel hajoojin wakaas
aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal waxaa soo baxday maalintii shalay in xilka qaadis lagu sameeyay ninkii lagu magacaabi jiray Aadan Faarax kadibna saacada kadib dawladdu waxay sheegtay inay arintii saxday oo si khalal ah ay ku soo baxday warqadaasi oo Aadan Faarax xilka qaadis aan lagu sameeynin inkastoo wasiirkii gaashaandhigga laga bedelay sidoo kalena lagu bedelay gabadha Caaisha loo jiray ee ka soo jeeday qowmiyadda Canfarta hadaba isbedelkaasi iyo arinkaas ismaandhaafka ama khaladaadka dhacay waxaan dib wax uga weydiinaynaa shidow arintaas maxay kula muuqatay arintaas horta waxay u muuqataa horta korneelku meesha wuxuu ka dhigtay ciyaal waa sugu leeyahay xaafad maartay xaafad buu ka dhigtay oo ab hebel iskuulka adu dukaan hebel adna iskuulka adna ma maanta iskuulka ma dukaanka aad wixii wuxuu ka dhigtay wax intuu dhamaa hadda saa u yaaca hadana ka soo celi meesha meel nidaam xagga maartay xagga maamulka waxaa ka jira waxaad moodaa inuu xaafad keli ah de wax ciyaal xaafad guri meel ku xaraystay wuxuu ka dhigtay meesha isdhaxyaa kale ma jiree waxaa jira dadka macno uma leh dadka asaga la shaqeeya agtiisa macno kama leh xilkan uu kuu magacaabay asagaa maamula adu xurumatid kaalay buu ku dhihi kursiga fadhiisa ka kac xagga tag hadda ninkan wasiir gaashaandhigga Tigray buu ahaa xilkan la geeyay hadda Caaisha xilkeedii waay Caaisha xilkeedina asagaa la geeyay meesha adaa hore wiir mugtay buudiga ka xunay abi waxbaan bedelo dhih waa ku bedelo ka bedelo wax macno wax cusub nin fashilmay oo iyo ku fashilmay oo lagu kala bedel maar Caaisha kursiga waad ku fashilantay aad hadda wasiirka aad joogtay ee waraabka waad ku fashilantay gaashaandhigga gudal casiyo ka sii adag wasiirka gaashaandhigga waad fashilantay xaggan ku celay biyaha ma fahamtay Aadan Faaraxow ra'iisul wasaare ku xigeen ayaan ka dhigay anna ra'iisul wasaare ku xigeen aan ka horeeyay xilkiisana adaa maamulan nin kale orama hadda laga daba magacaabay ninka orabka maxaa loo magacaabay asaga ku xukuma waa xogayaa ra'iisul wasaare ku xigeenada xogayahooda marka ra'iisul wasaare xogayada waliga maarto xogayaa ra'iisul wasaare maamulaya leeyahay marka Aadan Faarax waraaqda soo baxday Aadan Faarax laga qaaday ninka orabka markii la magacaabay uu ku soo baxay darajadii Aadan Faarax mid lamid ah uu ku soo baxay dadku waxay dhaheen Aadan Faarax meesha laga saaray Aadan Faarax ayaa meesha laga saaray telefishinka dawladda qaybta faanada telefishinka faana ee dawladdu ay leedahay ayaa baahiyay kadib waa dar halgelin ka bixiyay wuxuu yiri Aadan Faarax xilkiisa wuu haystaa laakiin ninkana darajadaas uu ku soo baxasna laakiin waa maamulaha guud ee ra'iisul wasaarayaasha waa karta Ethiopia ayaa laga hayaa ra'iisul wasaare ku xigeen kale maamulo guud oo ra'iisul wasaarayaasha hoostigayaan waa wiil yar oo ormo jagaxir iyo hoostigayaan mid kale waxa kale oo jirta waxaad ka maqlay Ethiopia waxa la dhihi wasiirka tusaalahan waraabka lahana awood ra'iisul wasaarenimo wakaas waxaas kale adduunka kama jira adduunka waxaas kama jiro nin walba awoodisa ayaa la siiyaa shaqadiisa loo madax banaanaya si uga nib keeno ama uga fashilma guul oo keeno marka baash dib u celiyeen nin walba waxa lagu awood ra'iisul wasaare ayaa leeyahay hatta saddex nin awood ra'iisul wasaare la ayaa jooga saddex nin يا أبي كوسين أود رئيس الوزراء هدي ما أبي أحمد وطاقته كبر صدق أنا كأحد خمسة أدوي دي تون يتو يتري بكلاليه وين تو تيزو ما كرنا تو جيبا تي وان كتيزي نيجي تريك بقى كمان يعني هو كله يهاي رئيس الوزراء أنا أسكت أنا ما رئيس الوزراء إنه أبي أحمد شقراء بحثوا كرنا بواب من كبريو شقراء تبى تغنى نيجي جغران لا بس خلاص معنا جغران هو إحنا ما عنديش أو ما عنديش ري موريان أما عيال سوق إنه عيال سوق حسوا كرن حلو هو من كبريو كفر بتاعي أضيو ها صدق إن الزرع مش بدنا صوّد كلاين وشقاد ديار كفر بتاعي لا ما بحنا ما نقول عصنا كيس دعاد ما نطلع شقين وحفيزتنا كاسة ما تمامولي ورئيس الوزراء ما وراء كاس عيون رئيس الوزراء وحجينا لا ما تكلم ما تحنا رئيس الوزراء ونقول عصنا أبو هاستي كفير بيانو أما أنتم كامزدان قبل كمر كله كي ما ترى شغالين هو حناقصين كيس دحاب بدي ما تعطينا شغالين waxaan ku meesha macna mara oo nin walba soo doon ka yeelayaan waa saddex laan waa isku bahdilaad waa inuu nin ismuujiyo oo maartay nin walba waa inuu dhahmaanta amaanta quraacda malaad nin walba maal dab ka dansanaya hal ma maanta la quraac saddex mid baa la quraacan labada kale maanta albaabka laga furay banaay daayeen maanta waa gartay bal dhanka dawlad deegaanka la wararka u soo badiyay ninka Mustafa ahaa laftigiisu buudiga ka xun asaga uu iska baroonaan lahaa maxaa ugu dambeeyay asaga Mustafa horta buu dadaalaya Mustafa koow
محمد دحنيس فلانية لكن ده مش وإثيوبيا إثيوبيا هذا موريان هن خيانة هذا ملايين ما مش قيس كده مصطفى وحال لي كان لبض كنت تخصص جامعات بوق صباح حاجة ولاد نمط جامعات بوق صباحي حاجة خيانة جامعات بوق صباحي حاجة ما أرتاي إثيوبيا على شقينا أنا جامعات بوق صباح أنت وجامعات بوق صباح مصطفى هذا الجيجي ما معه كوضع كلامه وقبيلة لا كل ما يو قبيلة بدور كتاب عليه دولة الدفاع دولة الدفاع وحال لي وضد عبدي لي أيوة هذا عكس سعر مصطفى إنه نقول برضه عبدي اللي مرتي مركب بحي سجاشن دقمو مقعابة سجاشن جد دقمو مصطفى وكلابته صدح تولو اسكو دقن أيوة صدح ذا بيجي دقمو يباتي مد كامل قاعدة ماله عبدي بقى تجي مصطفى وحال أي شيء حاله إنه يجري دقمو وحاسه وضع سجاشن كي يبان مقعابي لفته هذا كوي عبديه هي المقعابي دولة دي إنه كل دفاع قلوب الباي حقبه كتير دولة الدفاع لك قلبات كستي ولاد عنفرتها يا سوى هيان وحيسكو هيان قبل كده يسكو هيان عنفرته وحنا آخر كرار يكوي دارنينا لك الديان كجودي سياسة أدو عكرتها كيو كان كنا بتجيله والود الجية سوى المغرب سياسته وكفر شلمي كيف يهم منك سبحان الله يري نك كهوس سيء ما أرتاي تداقيا يوه نجيب الجولة هو كان بتجيله ما أرتاي وحنا خلك قال كده وحنا مقعاب كده أمان سوكر وكان كنا بكين كور لما أركن ما حسك هو كان بتجيله نكو أعمالنا نقول مرملين هيا هذا محاري ماشي وما بهنه مش حنية وباهن تاي أيضا حنية وباهن مش ويتوب منافقات بتاعنا كورنيل كي جوجا أحمر كان يا لوتي أبا كان محلل يا ووشة وشة كان مش عارف أيوة وها يا لو هنجبي ما كده ويل كده داقة حاجة أقول أخو حمود يا وقاكن وتجيل لنا سير صويا جزء الحرج هذا أربعة عادي يقول أحسن ما عادي يقول أحسن وقاكن وتجيل قليل وين أيادو صار نيجي حنيجي يسمونه فول مصطفى لكن جعل مصطفى يا جعل علي وقاكن وتسوق الله أريد منك حفيز كي يمادو أما ملحونا يمادو ملحونا حولي وحنا وراقة هاي وحنا دعوة لجاز وجدبي يا جد كورنيل هبل جاز وجدبي كبر قدوميها قبل كذا كذا وجدبي كدق مدى كذا وجدبي كي قبل فاهم كذا وجدبي مركا حولي ونقد داية نيجي ماشي أسكت جو مصطفى دي نقد داية أصير وهو كان بيجيب حاجة تلعب كمان قاضي أيوة هو نجيبه عنده ودق الجلية مرجله ولكن قالوا إنه الجلية وحش قام قبته وعمل بنانية هو صور مصطفى ما يشوف عليه كفايدة يقول له مرمر بقول كسوحرا كفايدة كسوحرا لكن أنا قبيل كفايدة ما لحد كل يسوع إنكار كل عظيم تذكر كوبابي سلكيش عيد كوبابي كدومياش قبلات كوبابي قبيات يمار تهريب عزوم مش كتوبة يباشي كل مي مركز ديان كسومالد إنه سياسة عن ما فرق لبنا نبانا كدوب دلع ستي وعجب يعني كان كفايدة هاوشينا حافظ بيكسو رصتي وقفتي وكجود بينا دنكا iyo dawlad deegaanka Soomaaliya waxaan u gudbaynaa bal Xasan Sheekh iyo dawlad DC iyo Villa Soomaaliya waxa ugu dambeeyay Villa Soomaaliya way fashilantay hay dawlad kama jirto Villa Soomaaliya waxay noqonaysaa maanta laga bilaabo maaragtay mid Nairobi laga xukumo ayay noqonaysaa mid Nairobi laga xukumo ayay noqonaysaa Nairobi si toos isku dhibtay waa Villa Soomaaliya xogta rasmiga way Xasan waa Nairobi yimid Nairobi markuu yimid madaxweynaha Kenya William Samoei Ruto wuxuu kula kulmay guri albaabadu xidhay warbaahinta laga qariyay ayaa ku kulmeen jilbuu qabsaday jilbaha adaa xukuumada madaxweynaha asalka waadiga imaamula Soomaaliya dhibta ma kaagaba imanayo Soomaaliya sidaad ugu yeedhsiiyad ugu yeedhin Soomaaliya meeshaad geesaad geey William Ruto adana xukuumada sidaad doonta naga yeel adaa ay magacaabeen hadda halkaas u istaagay ninkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ma fahanteen waxaa la leeyahay sidoo kale gudiga caasimadda amnigeedu ma degano xal wada arkiis xaafadda Daarusalaam alla laba beelood isku dagaashay kubta la iska saaray dhishigaal isku garaacay oo bal soo qaatay waxa la soo qaaday guriga dhammaan dab la qabasiyay cagta la mariyay waa ko anaga la xaafad muu saddex magaalo aqoonsan samad لا سيد دقمو هذا قبل كبنات سديتو من دقمان تدويتهم بقى ياخد دقمان يجري فوق ولادك سديتو زمان لباتن كوب غير حس تدويتهم زمان هذا بو كدغ لباتن كو لباتن بو كدغ كو سيد دقمو كدرو قوسو قلق غدو يري دار السلام iyo Garsbaal leemeed سيد دقمو كدري
saddexdii degmo lagu daray wadankas wadanka in dawladda ka jir waxa ku cadeynaya siisa degmo markay degmo tahay in dad lagu xukumiyo ma dawladdu waxa ay iyadu maamulato cid doonta ay geysato barasaabkii doonta ay u dirto laakiin la qabiil hebel baa iskale waa khalad markii degmooyin ku dhawaaqay rag baa dhishigala soo wada istaagay anaga iskale war degmada salaam waa degmo aad loo dhisay waa kharash baa la geliyay ganacsato Soomaaliyeed baa dhisatay dad Soomaaliyeed dhistay beel baa waxay ku leeyahay anaga la jiro looda ku xariisan jiray haddii maanta degmo loo aqoonsaday guryahan ama wada rujisanaysan ama anaga nooga baxaysan war dabaqadan aan fooqyada la dhisay 12 13 daba maraya xagee laadi adoo reebana wad guri garta hawsha jiq maxaa loo magacaabay qarku saarada in laga laabtay qarka loo saaran yahay xalay Dar Salaam oo sad u dhisneed adeegweed dhawaaqa laga maqlay bash garta ma fahanti waxa isku haysta murursade habar gidir iyo abgaal baa isku haysta waxba qarneen saddexaas isku haysta ko murursada waxa weeyaan anaga abgaal waxay leeyihiin wadanka anaga ka talena ma fahanti qolaha habar gidir loo xaal waayay oo shaqadoodu ay noqoto xarumaha dawladda ku habsadaan aqal kale ma jirto habar gidir xarumaha dawladda bas ay ka ganacsadaan dabdabiska loo taaglayo wali fadhaaf fadhaan war ilmaha ka qaata meesha way fadhiyaan taas oo kuma qumana dawladda ba iibsanayso taa waa lagu taageersan yahay dawladda ma yadee dhul ha samaystaan habar gidir xarumaha dawladda gala dhul way leeyihiin maxaa ka khaldan dhulkooda xarumaha dawladda ma dhul noqon maya taas waxay la mid yihiin shacabka kale ee gobolka Banaadir degan bay la mid gobolka Banaadir dadka degan xarumaha dawladda ma degan way wada degan ma jirto habar gidir bas degan xasan sheekh beesh saa ugu badan ma jirto waxa kama jiro dadka degan xarumaha dawladda ee laga keenay ee dawladnimada hortaagan waa beesha habar gidir taarud ana ku hay hadda soo dabdabiska la isku haysan xaafad kale hadana dawladdu ku haystaan weeytan anaga toodo bay dawladda aragtay kuwa kale beelaha kala degan yihiin dawladdu ma aragto way aragtay dawladdu baani karo hore u gureen xarumaha dawladdu wada wareeji xarumaha dawladda badan ee beelaha kala deganaan abgaashu deganaan jirtay waa la wada wareeji hadda habar gidirta ayaa weeras dhaxaafad haystaan dawladdu ay leedahay dabdabiskii dhanna weeraan 15 habar gidir wadan way caasimada way ku habsatay way hore ku habsatay ma fahamtay Muuse Suudi baa meesha fadhiya Muuse Suudi ayaa fadhiya Muuse Suudi baqa ayaga ma Muuse waa abgaale laakiin waxa uu fadhiya oday maxaa dhaban cad ma mooy dhaban cad habar gidir ma dhaban cad iyo xaaf iyo balaaya fadhido wadan ka ganacsata ma fahamtay Saadiq John oo sadaq u yahay odaygii Jawiz joogay ayaa halka ka soo afufay isagana Cabdiraxmaan Shakuur oo أنا نقول كذا نقول عاقل لكن أيوه أنا عارف شو على جو يدي حافظ دينه وحكوا بستي حرمي دولة ده حير ترى حافظ الله كم تاجر سنين حرمها دولة ده كابسته لكن حافظ الله سكارة يا الله بيكسر يا أرجع يا أنا خبر بقى أول ما جرت ما أنا خبر حي كتان الشن يطبعن كملوا ده لا ده كوا بستي أيوه قلنا يحكوا في عينه وليه دولة صح مرك إماته ونورتينينا دولة صح لكن دولة صح ماشي كمل شرطو مركبة ولا صيفة سحب عبد الكريم قولت باب ماله تاجن بأيو يا جناح ستكله ضد كذا دي دولة دول قدنا يساب مركبة يا كذا تجناح ستلا قالوا ماشي جناح ستة تجي صدق دونتان سوق بس ما لون سيا ماشي لو ما نساي وكان لو ما نساي حك هاي مركب هوشن إن يدقيه أو ماشي أنت الدولة صح إيمان يسوع أي دجنادان أروح حتى رسمي وحسوق هذا وكنت أجرسنا عاصمة دلبا قلهم بحرين الدولة ما كنا نتو كل مرة بيش مرصاد بيش مرصاد الله ماشي كجورة ساعدها بجورة الدولة دولة بتنازلي دول كذي بيكونوا قلنا ماشي الله تقول يحاول أقول جديد يدبوا باللعبان كو أبجان لقولوا أزمات كيان نواحد نمكن كل ما لكن قرضا جواد الشيء كان حرمات بهستان به قرضا جواد الشيء تودير كدشيكا دوش كسر سارية وهبر جديد ما فهمت اللو تاجل أي دولة نمد أكيد نقاقل هذا وهبر جديد تط سومالي ده ما ينعرف هبر جديد وحنا لا نهاي كل لعبة ماشي الله كل غنجتين كل لعبة جرعل لو سمرات ماشي حاجة معايا ماشي شو مرسال دقيقة المرة ماشي معايا محمد ماشي معايا حاجة والمال حد واحد يتواجد ويجلس كلها ماشي معايا ماشي معايا ماشي marka qoladii haba giidad dhulkaan aad u garanaynin xara dheerana way jirtaa meesha cawska iyo caws meed meesha way dhadeen caws weynaha iyo
dhulkaas aad leh habar gidir dawladda military markay burtay magaalada soo gashay dhulka markay waxay ku habsatay iyadoo yaacaysa ku habsatay marka hadda habar gidir waa in loo celiyo waa inay doorashada ka soo galaan deegaanada ka yimaadeen goor wuxuu leeyahay ninka gabadha heerka hadiday bule majid xagga ma jiro majid xagga ma jiro safad u gaxsan baaraynaya ma hadalka habar gidir soo noqonay ayaa saas u gaxsantay markaas waa inay dhul samareen iyo gaalkacay iyo mudug aadaan halka doorashada ka soo galaan muqdisho aan lagu arkay habar gidir عندي وبال سومالي ودقيق وبال سومالي لكن حسوا جيل حرمها دولتها كبعان magaalada ka soo galaan dukaamaha dhistaan tagataan magaalada lacagtooda la yimaadaan laakiin dhul hore loo sii lahaa yaa haysanay wax shaqeynaya ma aha waa gartay aad bay adagtay barihan doctor wadan dhacdeen ugu dhaxgay baash qudhiisu kala garinayay hadda xaru yiri xamsu yiri hada xalay odaygii caga dheeraha iyo soo fadhisi caga dheer wuxuu yiri xarumaha dawladda kuwa jooga waa inay ka baxaan maxkamadu ragga ay xukumeena waa arkay beel Soomaaliyeed oo dhaysa hebel lama dili karo waanu dilaynaa bir حمزة دي عن قبل غزو أردن مش كذا بحر ما بعد مرة عقد أنا وبنطلون وقف ولا ماشي قضية حسن هذا يرساده أنا ما تكرر كذا تاني أضرب نبيل وندلي النبيل كل محكمة حكمت مرة أركان سجى بالجير وسود أرتين مرة سولما دي كارو حمزه محل دي كرا مركز رجل جارة وإيه هذا الواحد حسن حقيقي أنا هذا الكيس سامي كده الله ونمكن أي شيء كذا يعني marka bal caga dheer wax adig kaaga sameeyaan jawaabta adeeg ka bixiya markana ado hadal laba gad baa inta hadal la dhig xil ku yahay maxkamadu xukumaan wad dilayna kuwii haabir lama dili karana barnaamijkaas ku weynaa nabi barnaamijkaas isay baash marka odayga halkaas kala dhacay barnaamijkaas shir garay meel bugna gaarsiiyay aad buu baasayahay daawadayaal barnaamijkeena faaqidaada ibaha ayaynu ku gunaanadaynaa intaynu dib ugu kulmi doono mid kan mid lamada waxaan kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo